kusoo dhawaada casharkeennii noo socday ee sida ugu wanaagsan wax u baran lahayd una fahmi lahayd casharada jaamacadaha ka socda. Waxaan maanta gelaynaa haddii aan la yiraahdo waxa loo yaqaano main idea, supporting details and concluding. saddexdaas shay qof kasta oo jaamacad gala waa muhiim inuu fahmo. Macallimiinta wax dhigaysana inay ardada u kala saaraan aad bay muhiim u tahay oo macallinku fahamsan yahay ardaygu sidoo uu kala saari lahaa saddexda qodob. Sidoo kale ardaygu waxa looga baahan yahay inuu fahamsan yahay topic kasta ama cashar kasta oo macallinku akhriyo sidiisaba waxa uu ka kooban yahay topic oo ah casharka cinwaankiisa ama ujeedkiisa main idea waxa casharku ka hadlayo waxyaabo qodobkaas fasiraya oo la yiraahdo supporting details iyo qodob lagu soo gunaanadayo warka. Sideedaba markii wax la baranayo muhiimadu waxa weeye idea la fahmaa ama fikrad cusub dadka loo sheegaa ama waxba laga hadlaa. Shayga laga hadlayo qofkiisu u fahmo waxa muhiim ah maca ardaygu in uu fahmo shayga fasiraadiisa iyo supportingkiisa iyo sida macallinku u soo gabagabeynayo. Halkan marka waxaan ka faranaynaa waxa loo yaqaano main idea, supporting details iyo conclusion. Halkan waxaad ku aragtaa kursigan qaybta sare oo ah top of the table-ka waxa ku qoran main idea. lugihiisa uu ku taagan yahay waa supporting details ama waa waxyaabihii caawinayay asaga faahfaahinadii caawinaya waa. Halka marka waxa ujeedku yahay in wax mainka ah ee halkan yaala uu yahay topicii oo topicii macallinku ka hadlayay waa cinwaanka ama ujeedka marka macallinku rabo inuu sharaxo. Sida darteed wuxuu ku siinayaa topku waxay ku siinayaan waxa loo yaqaan purpose. Ujeedkii macallinku rabo inuu ka hadlo waa topka ama waa topiga ama waa main idea-da dheh. Sida darteed main idea-da waxa ku xiran supporting details kuna main idea-dan bay fasirayaan iyaday ku xiran yihiin iyaday sii sharxayaan iyaday xoojinayaan. sida darteed markii aad fahamsan tahay main idea waxay tahay iyo supporting details sida ay isugu xiran yihiin miiska iyo lugihiisu ay isugu xiran yihiin wax kala hari kara ma ahan. sida darteed supporting details-ku wuxuu xoojiyaa waa kuwa lugaha waxay xoojiyaan main idea-da ay awood u yeelaan oo qofka si fiican buu fahmi karaa hadduu supporting details ama faahfaahinno caawinaya topic ama mowduucii faahfaahinno caawinaya markaad ku xirtid waxa macna yeelanaya mowduucii baa la fahmayaa. sidoo kale hadada mowduuc marka horeba ka hadlin waxyaabaha ah caawinaya ama faahfaahinada wax caawinaya cidlay ku soo dhacayaan oo iyaguna waxba ma tarayaan. sida darteed sida miiska ay qaybta kore iyo lugihiisu ay awood isu siinayaan oo qaybtan sare ee main idea-da aysan u istaagi karin la'aanta lugaha oo ah supporting details-ka ayaa mowduuca iyo faahfaahinadiisu aysan u kala maqnaan karin. marka muhiim waxa ah cashar kasta oo lagu dhigayo oo macallinku dhigayo saddexdaas shay waa inaad ka heshaa. main idea waa inay jirtaa ama topic macallinku ka hadlayo waa inay jirtaa. sidoo kale topic ama mowduuca macallinku ka hadlayo faahfaahinadiisii caawinayay si aad u fahamto iyadana waa inaad heshaa. haddii aad intaa fahamto arday guuleystay baa tahay arday hormaray baa tahay arday si fiican xaaladihiisii casharka u fahmaa tahay. meesha u dambaysa ee casharkana macallinku wuu soo gunaanadayaa waana baran doonaa welibana waan ku sii dhex jiraynaa insha Allah taala.